السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي lifestyle with luul oo maanta idiin haysa xaniid iyo bariis qado special ay kasoo tuuri doonta sida uu sameynayo walaalahayga qaaliga ila daawada qado aan inaba caadi ahayn. halkan waxaan ku haystaa waa garab hilib waa tuun, waa raqay, waa paprika, waa chicken masala, waa mataqaanay oil laba qaado cusbo iyo jumbo iyo liin dhanaan intaas aan isku soo qasanayaa. waa kana intii oo maxaa la dhahaa korka ka marinayo hilibkan waxaan rabaa inaan geliyo ovenka ku dubo si fiican aan rabaa marka inaan isku dhex geliyo. kana walaalahay oo isku soo xirxiray ovenkan ku xareeyay hadda jibis yar marka noo sameynaya. jibiskaaneeto wax yar oo cusbo iyo wax yar oo waxaan soo mariyay food coloring basasha hadda noogu ridayaa food coloringkii aan ka bixiyay jibiska baan basasha in yar soo geliyay. basashaan ma dubaayo wax yar aan kululeynayaa. wax yar oo sabiib haddana bariiskii aan dalaacanaynaa. saliidaan kusoo shubtay waa basal, waa tuun, waa qarfe, waa dhagayare, waa filfil, wax yar oo cusbo iyo in yar oo mataqaanaa chicken stone vegetable wax yar oo xawaaji bariiska waa kana maraan soo dhaqday bariisku ii diyaarsanaa. kana maasha Allah saan noogu soo baxay bariiskii. wax yar oo food coloring aan korka uga daray. hilibkii saacad iyo bar ovenka noogu jiray saan ku soo baxay maasha Allah. inaba caadi ma aha, waa bariis iyo xaniid aan laga sheekeyn karin. alaabtan xaajigaaga waa inay ku casuuntaa. xaniidka waa maxaa la dhahaa hilibka maqaayadaha laga sameeyo. xaajigaaga maxaaba maqaayad ugu diraysaa adaaba gurigaaga ku sameysan kartid. lagama sheekeyn karo inaba caadi ma aha. waxaan rajeynayaa inaad tijaabi doontaan. ma idin soo gudbin doonaa. asalaamu calaykum.